wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxay warbixin ku aadaneed qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka waxa ay la wadaageen guddiga maaliyadda ee xildhibaanada golaha shacabka waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan wasaaradda ugu horeeyo wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya kadib markii uu soo gabagaboway kulankaas ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ah kula hadlay agaasimaha wasaaradda qorsheynta Asad Yuusuf Dheere ayaamahan waxaa socday wada tashi ballaaran oo aan rabno inaan ku saleyno qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad ee soo socdo qorshahaas oo bilaabanaya 2020 oo hadda aan ku hoolano xubno kamid ah oo aan rabnay inaan la tashano maanta la kulannay oo baarlamaanka guddiga miisaaniyadda wada tashigaas qodobo aan ooga soo baxeen qodobadaas oo muhiim ah insha Allah waan isku noqonaynaa kadibna wareegga labaad aan isku soo noqonaynaa hadduu Ilaahay yiri Maxamuud Cabdullaahi Ziraaj oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa ka warbixiyay kulankan iyo ujeedkiisa sidoo kalena waxa uu sheegay in qodobo dhowr ah ay ka wada hadleen oo ay ka mid yihiin horumarka dalka ammaanka shaqo abuuridda iyo sidoo kale qodobo kale guddiga maaliyadda waxaa fursad u ahayd inay la fariistaan wasaaradda qorsheynta si ay uga wada hadlaan ama uga wada tashtaan qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka muhiimadda iyo bottom line-ka maxaa la jiray qorshahan wuxuu yahay sida lagu yareyn lahaa saboolnimada ka jirta waddankan waxyaabo badan baan isla garanay mid ugu muhiimsan ay tahay in dadka ayaga isku tashtaan maxaa la jiray si faqrigan iyo saboolnimadan looga baxana loo baahan yahay waxyaabo badan in la wada qabto oo ka koob tahay amniga in laga wada shaqeeyo amni haddii la helo investors iyo maxaa la jiray maalgashiga waddanka imaanayo dhaqaale badan oo waddanka soo galayo shaqo abuur badan baa maxaa la jiray ka imaanayo faqriga badnaana uu yaraana waxyaabaha kale oo ka wada hadalnaa waxay ama aan ka wada tashanay national development plan-kan ama qorshahan in uu ka mid noqdo maxaa la jiray budgetka waddanka uu leeyahay ama miisaaniyadda waddanka uu leeyahay lagu daro projectyaasha haddana socdo waddanka ka socdo ama UN-ka ka imaado ama international community-ga ka imaato in lala align gareeyo ama maxaa la jiray lala jiheeyo balaankan aan national development plan-ka Fahmo Axmed Nuur oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya oo dhankeeda ka hadashay ayaa waxay tilmaamtay in qodobadani uu ka mid yahay deen cafinta lagu leeyahay Soomaaliya wasaaradda qorsheynta anoo magaceeda ku hadlaaya guddiga maaliyadda iyo qorsheynta baarlamaanka oo maanta ay ahayd fursad in talooyin badan oo lagu soo biirinayo qorshaha qaranka ay nagu soo zaa'idiyeen waxay ahayd fursad qaaliya waana gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa annagoo og maaragtay shaqooyinka culus ee ku yaalay inaad fursadaasna siisid qorshihii sagaalaad ayaa wada tashigiisii maanta wuxuu soo gaaray inaan la imaano baarlamaanka waxyaabaha ugu waaweyn oo laga hadlana gudoomiyaha iyo agaasimaha sheegay waxaan ku dari lahay wuxuu sal u noqonayaa deyn cafiska dalkan caqabada haysata waxa waaye deyn badan lagu leeyahay si deynka looga cafiyana waxay ku xiran tahay hadba sida qorshaheena qaranka aan wax uga qabano ama aan mid qurxan u soo saarno Farxii Maxamuud Yuusuf Honkebel TV Muqdisho